saan mooday siday noqotay iyo si aan loo noqon doonin marnaba ha igu sirin hana igu qaldin isboortiga Soomaaliya jahiimada naarta iyo falkaanada holcaysa ee ay dadka madaxda ka ciyaaraha Soomaaliya kulidayaan ruux walba wahami han iyo himilo la isboortiga Soomaaliya iyo sare gaarsiintiisa waxaan ahay Cabduuli Maxamed وسوورين كلو كصابسن قصة حنون حنبارسن أو إنه لي ما نسعياني هنهري حرفة الطبيعية هو قصة راح يستقبل دعاية الصومالية ويعجيب قصة حقات الجرامة المقدسة كيال هذا الشيء وقت يواجه كدوم كقابل يدلك البديسة فضلا مقارنة نلاقي نصار في شركة واحد كل تاينا قيبته هوسية كم تيجي إنه قصة بدي واد ما سنتهاي waxaan u soo adeegay kan soo dhex shaqeeyay ciyaaraha Soomaaliya xilli ay adkeed in lagu dhiirado in lagu dhex noolaado bulsho sidaas ka aaminsan isboortiga xaaladaha duruufeed ee ku xiran ciyaaraha dalka Soomaaliya iyo caasimadda Muqdisho lagu ciyaarayay darteed ruux walba ku muusan diiran karin inuu noqdo ciyaaryahan laakiin hamiga sare ee aan ka leeyahay ciyaaraha rajada aan ka qabay inaan mar uu ciyaaro xulka Soomaaliya iyo matalaadda ugu sareysa aan u baahnahay inaan ku matalo kooxaha dalkeena Soomaaliya ayaa igu dhaqaajisay aniga inaan midaas sameeyo ciyaar xaafadeedkeygii koriimadeedii iyo halkii aan ka soo bilaabay kubadda cagta wax fikrad badan kama siinayso xaaladdeedii iyo qofka aan ahay waqtigii ka lumiso mooyaane laakiin markii xirfadeyda ay sare u soo kacday waxaan jaanis u helay markaygu ugu horeeyay inaan ka soo muuqdo koox ciyaaraysa horyaalka heerka saddexaad ee dalkeena Soomaaliya kooxdaasi oo aan xuseenin magaceeda iyo dadkii maamulayay waxaan kula qaatay waqti aad u qurxoon oo dahabi ah waa kooxda iyo bartay cashirka nolosha iyo waayaha adag ee horyaalka iyo ciyaaraha Soomaaliya sanadkeygii koowaad ee heerka saddexaad aan ciyaaro waxaa sabab u noqday inaan ku guuleysto goolalinta horyaalka heerka saddexaad ee dalkeena Soomaaliya anigoo ciyaaray lambarka 9aad ee kooxdayda sanadkeygii labaad waxaan ciyaaray horyaalka heerka labaad anigoo kooxdaydii u ciyaaray wali isagiina nasiibkii waayaho isaaciday waxaan kula guuleystay kooxda goolalintii iyo horyaalkii dalka qaybtiisii labaad sanadkii saddexaad waan u dalacay horyaalka heerka koowaad ee Soomaaliya bandhigayga tayadeedii iyo xirfadeeda ma ahayn mid libiqday ee sideeda ayay ku sii socotay bandhigyo cajiib ah waan sameeyay iyo kooxo waaweyn oo dhagta dhiiga u diray ayaa sabab u noqotay in la igu soo kala ordo laguna soo xoomo inaan waqti u waayo nolosheedii iyo raaxadeedii madaxda kooxaha iyo maamulayaasha ayaan ka nidsan waayay ayaga oo mar walba isku dayaya inay dhankooda ii jiitaan shor balanqaad iyo balmo badan ayaa la ii dhigay oo ku saabsanaa inaan kooxdan ka tago mid walbaana kooxdiisa ayuu ila doonayay laakiin si qanaaco leh ayay igu qanciyeen kooxdii aan la joogay maamulkoodii iyagoo igu abaal sheeganaya inaan xaq u leeyahay kooxda inaan sii joogo waxaa la igu abaalmariyay calaamadda xusbadnimo ee kabtanka hogaamiye ayaa la iga dhigay waxaan ahay daayar markaasi ciyaaraha Soomaaliya waliba heerkiisa koowaad ku cusub مسؤوليات يرى اللي يسارع أيان وقاتين يتحي ماشي يقول بيسي النتيجة اللي جو أول مرين لها تا يا ساعدين إن ضد المنظر الذي كوحه وين يجي ماني كل اللي الذين كوحه لقصي سبناده حلق الصومالية وما المهاسعية تريد ذل حلي وحنكمل لها أحد دقيقة الله حلي حسوستي إذا هديت مقدمين وحنقول توبرنا نجرو كجامعة ذا دقمة هذا نجول كبنادر anigii ciyaartay tiro badan oo qayb ka ah xulka Oceanistan qayb ka mid ah rajadii aan mar walba ku nooloonayay ayaan gacanta ku hayay sidaa daraadeed wax badan ugama u baahnayn inaan ku biiro koox kale oo ka weyn aan joogay laakiin maalmaha iyo waqtigu aad u rucleynaya ayaa sababay inay timaado maalin ka mid ah maalmuhu waxay soo gaareen dhaawac fudud marka la fiiriyo xaaladaha nolosha iyo ciyaaraha Soomaaliya sida yihiin waa dhaawacii baray cashirka midkii aan ka qaatay khibradda iyo waayo aragnimada dhaawacii isaga kadib aan ku noqday macallin iyo ruux wax walba oo ciyaaraha Soomaaliya ku saabsan ka dharaysan
baaris arrinta xaqiijinaysa oo guulaysatay markii looga sameeyey isbitaalka lafaha ee ku yaala aagga masaajidka Nasruddin Barwax. baaristaasi kadib waxaan u tabaabushaystay sidii gacantan leegaga soo kabi lahaa. faashad ayaa lagu soo xiray. waan ka cudur daaranayaa inaan idiin soo gudbin karin taariikhda iyo waqtiga ay ahayd xilliga faashada lagu duubay, laakiin maalintu isiin ayay ahayd. xaafadayda ayaan imid anigoo gacantu ay ii duuban tahay. inay ii yimaadaan madaxda kooxdan u ciyaarayay, isoo booqdaan ciyaartoydii aan kabtanka u ahaa, saaxiibadii mar walba i daawanayay iyo kuwii kale ee ciyaaraha ayna mideeyeen. waxay ahayd fikrad qulubteeda si aada uga dhex buuxaysa mar walbana aan ku haminayay, laakiin taasi si caadi ah ayay u madoobaatay qalbigeygana uga baxday markii tii koowaad, maalintii labaad, tii saddexaad ilaa iyo maalintii afraad aan waayay hal ruux oo ka socda bahda isboortiga oo xitaa taleefankayga soo garaaca. alla ayaa mahad leh, ka sokow qoyskayga oo waqti badan ku bixiyay sidii caafimaadkayga ay ula tacaali lahaayeen uguna soo noqon lahaa halkii ugu saraysay ee aan markii hore ku sugnaa. laakiin madaxdii kooxdii aan u ciyaarayay sidii inaan baahi u qabo ayay u qaateen malahayga. taa ayaa sababtay in taleefanadayda la iska xiro, in lambarkayga oo idin la iskaga xiro blog. waan la tacaalay waqtiga, waan la rafaaday dhaawacii soo gaadhay muddo kadib, laakiin waan soo kabsaday. dhakhtarkii oo aan ku noqday ayaa mar kale ii sheegay in lafta ay qalloocatay gacanta, markaana ay qasab tahay si loo toosiyey in mar kale kabniinka la angalo lana jebiyo halka qalloocatay. waan ku dhiiraday midaasi anigoon qofna kala tashan in la sameeyo. waa la jebiyey gacantaydii. kabniin labaad ayaan galay. maalmo ayaan mar kale faashad gacanta ku isticmaalayay. muddo kadib gacantaydii oo caafimaad qabta, anigii oo caafimaad qabo sidii horena ka soo boqorxoonaaday ayaan dib u soo noqday. waxaan isku dayay inaan dib ugu soo noqdo garoomada kubadda cagta, balse aan u tijaabiyey xirfadayda mar kale. laakiin maxaa dhacay? kuma fikirayn, kumana riyoonin inay midan oo kale marnaba dhici doonto. in kuwii markii aan dhaawacnaa balooga saaray lambaradooda iga xirtay xitaa seetaha iyo quuri waayay in hadda ila soo xiriirayaan, marna umaankayga kumaan hayn. walaal see tahay xaaladaada ka waran? inaad kooxda ku soo noqotaan rajaynaynaa. kormee tababarka soo gale, aan wada hadalno, waqtina sii. iyo hadallo la mida ayuu ahaa wixii fariin ahaan iyo wicitaan ahaanba la iigu sheegayay markii aan soo caafimaaday. waa la yaabay xaqiiqdii dadkan siday u fikirayaan iyo sida xaaladoodu ay tahay. mar baan is yidhi ma adigaa wareersan oo niyahu meel aan jirin ka dagaalamaya, mise xaaladdu waa mid aan socod lahayn, waa mid aysan dadkuba isku baraarugsaneen. malaha iyaga ayaan boogay wixii ay shala sameeyeen iyo wixii ay faleen. dhaawac yaroo gacantiiga soo gaaray ayaa taleefanka leegaga xirtay ama blog la ii saaray. bal ka waran haddii dhibaato ka weyn ay soo gaari lahayd maxaan la kulmi lahaa? maygula talin lahayd adiga xilligaas la taagan yahay inaan mar kale dib ugu noqdo kubadda cagta Soomaaliya, bal aan gacanta kale ka jabay ama lugta aan ka jabay, laamigana halaygu tuuray? haddii aad tahay ruux damir la jawaabtu waa maya. go'aankaas ayaan aniguna gaaray, sidaa ayaana ku joojiyey ciyaarihii Soomaaliya, anigoo u sheegay dadkii la soo xiriiray inay faraha iga qaadaan farxadayda iyo noloshayda kooban ee aan ku raaxaysanayo. xilliga la joogo waxaan ku raaxaystaa oo aan ka ciyaaraa horyaalka dalka Kenya, anigoo ku xamaalanaya xirfadii uu eebaysiiyey ee ay Soomaalidu ka faa'iideysan weysay. waan ku qanacsanahay nolosha hadda aan ku noolahay. magacaygu waa Roble Khaliif Faarax Super People, mid ka mid ah ciyaartoydii soo maray dalka Soomaaliya horyaaladiisa heerka koowaad, labaad, saddexaadna goolalintiisa soo qaaday. taariikhda horaanteedii iyo gadaasheedaba midna maysan dhicin midan oo kale. hal ciyaaryahan in sanado sidan iskugu xigo uu guulaysto goolalinta heerka koowaad, heerka labaad iyo heerka saddexaad. waad ku maasantahay adiga haddii aad daawanaysid sheekadaydan ama qisadaydan. ayuu ku soo koobay maqaalkan dheer ee uu inoo soo diray ciyaaryahankan ciyaari jiray ciyaaraha Soomaaliya, qaybna ka ah saaxiibada aynu ixtiraamka u hayno. fadlan muuqaalkan like inoo saar saaxiib, inoo share garay. waxay kula tahay qaybta hoose ee araahda commentiga weeyaane inoogu soo xariiq saaxiib. waad maasan tahay.